محمد سعد إسماعيل taliska ciidamada bilayska ee Somaliland ayaa ka hadlay shilal khasaare dhimasho sababay geystay oo maanta ka dhacay wadooyinka magaalada Hargeysa qaarkood dadka shilkaasi ku dhintayna waxa kamid ahayd Hibaaq Cabdiqaadir Koosaar oo ahayd xaaska wasiirkii hore ee qorsheynta ee Somaliland Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe taliye xigeenka ciidanka booliiska Somaliland Sareeye Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka gaashaanla sare Faysal Xiis Cilmi ayaa tafaasiil ka bixiyay shilalkaas maanta halkan waxa ka dhacay magaalada Hargeysa saddex shil oo waaweyn mid wuxuu ka dhacay Xeraaw mid wuxuu ka dhacay International Hospital-ka midna Isaboorame oo in la xaraabo ka dhacay waliba magaca taliyaha guud ee ciidanka bilayska iyo kaygaba waxaan tacsi u diraynaa dad Cali Shombe oo xaaskiisii ku geeriyooday iyo محمد سعد إسماعيل oo soo dhintay iyo dhammaan dadkii kale ay waxyeeladu ka soo gaadhay shirarkii maanta ka dhacay magaalada dhammaantood waxaan Ilaahay uga baryaynaa intii dhimatay inuu naxariisto inta nool Ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo sida ay ognahay ciidanka bilaysku oo uu hormoodiyay ciidanka taraafika waxay ku jiraan hawlgal aan kala go' lahayn oo dhammaan shacbiga Soomaaliland ay arkayaan ciidankii oo ka shaqeynayay wadooyinka oo eegay liisamadii gaadiidkii tagaraaniga xamuulkii hadaba dadweynaha aan wariyaasha baabuurta waxaan kula dardaarnay inaan u sheegnaa inay dhamaatay waqtigii naxariista la isu geliyay ee inta ganaaxiya kullaysan imka wixii ka dambeeyay sharciga la soo geliyay haddaan liisankii wadan haddaan xirfadaada dhamaystiray gaadiidkaaga wadaan efficient tahay xawli haddaad ku socoto